السلام عليكم كسو دواada Dulis Media subscribe hadii aadan hore u tihin maanta waxaan ku hadli doonaa qiso aad iyo aad u cajiib badan oo ku dhacday gabar muslimad ah qisadaas waxayna tusinaysaa sabirka fadliga uu leeyahay waxay tiri waxaan ahaa gabar dhowrsoon qurux badan heerka ugu sareysa ka joogta akhlaaqda iyo diinta waxa ay soo maray sanado badan qof soo doonta oo ay mehersada maanan arkin waxaan arkay gabdho iga yar oo la guursaday oo caruurna leh waxaan gaaray 34 sano maalin ayaa waxa soo doontay wiil reer wanaagsan ka dhashay wuxuu iga weynaa 2 sano wuxuuna ahaa wiil aad u akhlaaq wanaagsan aad ayaana ugu farxay waxaana bilownay inaan fariisano meherkeena si uu u dhaco wuxuuna iga dalbaday warqadda dhalashada iyo sugnaanta si uu u dhameystirmo meherkeena waana siiyay 2 maalin kadib waxa warqadii heshay hooyadiis way soo wacday waxayna iga dalbatay inaan si dhaqso ah u kulanno waana u tagay waxayna soo saartay warqadii iyo sawirkeygii waxayna i weydiisay taariikhda dhalashada masaxba waxaana ku dhahay haa waxay tiri cimrigaagu wuxuu ku dhow yahay 40kii waxaan ku iri aniga 34 ayaan jiraa waxay tiraahday islaantii wax muran ah ma jiro ee adiga waxaad dhaaftay 30kii waxaana yaraaday fursadii aad wax ku dhali lahayd anigana waxaan doonayaa inaan arko caruurta aan ayeeyada u ahay mana aysan tagin ilaa ay meherkiina baabi'isay waxaana ka soo wareegay 6 bilood aniga oo ka xun oo la murugaysan burburkii meherkaygii hooyaday iyo aabahay waxa go'aan ku gaareen inay ii diraan cumro si aan ugu dhaqo murugadii iyo dhibtii soo wajahday guriga Ilaahay waan safray waxaana fariistay xaramka waxaana Ilaahay weydiistay inuu xasilooni isiiyo goortii aan salaadeedii dhameystay waxaan arkay islaan akhrinaysa quraan cod dheer oo qurux badan waxaana maqlay iyadoo ku celcelinaysa aayadan وكان فضل الله عليك عظيما waxaana iga soo daadatay ilin sida biyihii oo kale ah islaantii ayaa ii timi waxayna igelisay laabteeda waxayna ku celcelisay aayadan wala sawfa yu'dika rabbuka fatarda ilaahay baan ku dhaartay waxay la noqotay markii ugu horeysay noloshayda aan maqlo qalbigayga iyo nafsadeyda ayaa degay waxaan dhameystay umradii waxaan ku soo laabtay wadankaygii goortan ka soo degay diyaaradda waxa ay soo dhaweysay saaxiibtay iyo ninkeeda waxayna sugayeen saaxiibka ninkeeda wax badan kama soo wareegin ilaa uu yimaaday saaxiibkii waana isa salaanay kadibna waan ka soo tagay si aan u qaabilo waalidkaygii goortaan imi gurigaygii dharkana aan iska bedelay abaarna aan nastay waxaan arkay saaxiibtay oo soo wacaysa oo ilaahay ninkayga saaxiibkiis aad buu kaaga helay wuxuuna doonayaa inuu ku guursado qalbigayga ayaa aad u qaboobay maqlida warkaas wax badan kama soo wareegin ilaa inta uu soo doontay bil iyo bar ayaana ka soo wareegtay inta aan isguursanay waxaan ka helay farxad waxaana ii bilowmay nolol qurux badan waxaana ka helay wax kasta oo nafteyda rabtay jacayl iyo naxariis iyo ixtiraam iyo baarinimo ehelkayga iyo ehelkiisaba dhowr bilood kadib waxa igu soo baxay calaamadihii uurka waxaana dareemay walwal anigu markaas waxaan ku dhowahay 36 sano waxaana ka codsaday ninkayga inaan isbaaro dhammaan jirkayga hadii aan wax dhali karo waxaana aadnay dhakhtarkii oo ku takhasusay xanuunada dumarka waxayna iga baartay qaar ka mid ah hormoonada waxaana la gaaray xilligii waraaqda jawaabta la siin lahaa waxayna igu tiraahday wax dhibaa ma jiraan baaritaan kalena lama baahna ee hambalyo adiga uur ayaad leedahay waxa ka soo wareegay bilo uurkayga aad ayaana ugu xanuunsaday waxaan ilaaliyay inta aan uurka lahaa inaan ogaan ilmaha noocu uu yahay waayo wax kasto Ilaahay iiga yimaado khayr buu ii ahaa iyo fadli uu Ilaahay i siiyay waxaana dareemay calooshayda oo aad u weynaatay waxaana is iri xamliga ayaa ka daahay waayo 36 sano ayaad jirtaa goortay dhamaatay dhalitaankaygii qaliinkiina aan ka soo baxay waxaan arkay reerkayga iyo reerka ninkayga oo dhinacyadeyda fadhiya oo qoslaya waxaana weydiiyay maxaan dhalay hal mar ayayna ii jawaabeen waxayna i dhaheen 2 wiil iyo gabar ayaa dhashay nafteyda ayaan hoos ula hadlay waxaana bilaabay inaan farxad darteed la ooyo waxaan soo xasuustay islaantii xaramka joogtay iyo aayadihii codka macaan ay ku akhrinaysay wala sawfa yu'dika rabbuka fatarda subscribe dhaha kanaalka Dulis Media siina gaarsiiya walaalaha muslimiinta Soomaaliyeed ee wanaagga jecel wassalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wa barakaatuh